أيوة بركاته داود يال كلنتو وعنا وناسن كسر دوم هذا برنامج ويا رك وحا مارتين وقع مانتا سعيد إسماعيل هوري نقول قاطي هل كان سوف فديستي برنامج كل دوان كسوجي شيء سيدا دباتوين كجوريها يوصومالي ده هل كان كنول وأنا سرقال كترسن يعني واحدة جوريها ماذا وانتسورث هل كان هروب سفريس القرن الإسلام برنامج كاس برنامج كهرين هروب هل كان أقسم به صعوتي عسيقة وحسوسته سعيد مانتا وحنا أهنجري أو ciidanka booliiska ayuu ka tirsanaan jiray sargaal buu askari buu ahaa ama sargaal asaa inuu sheegi doona aad baan ugu farxay sababtana wax kale ma ahan yani munaasabada inaynu ka faa'iideysano maadaama inaan nin Soomaaliyeed ama shakhs Soomaaliyeed raalli ah sargaal booliis dalkan ka soo noqday isaga sidoo ii sheegay in nin kale ee Soomaali ah yani hal mar la wada qoray waxaan doonaynaa marka munaasabada inaynu uga faa'iideysano bal howlgalka booliiska dalkan guud ahaan يعني سيدا وشقية قابكم شرعية يعني دل كان وقسم بليسك وإلالية دنبية محلي كهرتجة وحيابها صنوع شقية دونا هذا نوعها وقف على دونا يعني هي أذها النبت سكيدا بليسك فرق جول حي وامحي يعني سلاقي دونا برنامج ويارك ما أهل مركي كواد هل كان سعيد أتصوف لسنة يسكسونه أدبوا فرسنا أرتماتنا تبات. أدبوا معتنتين محاين دكتور وسوق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. إن كل إن واحد كوير هبونتين وكوب العظم محوها إن قيب يرى إسكاب بيسجة أو مثلا محوها بوليسينك أما معناها بوليسينك وحية. إن كل محوها جراماتيك روح مهمة ما هنا نحكي الله سوى حوي محوها براكتيكالي. سيد waxaan u shaqeeyaa marka booliisku micnihiisu waxa weeye waxa la yiraahdo conflict resolution in mushkilada ama shidada loo helo wada lagu xaliyo marka muxuu ahaa shidooyinka laftooda ayaa laba qaybood kala ah marka muxuu ahaa shidooyinka qaarkood waxay tahay waxa la yiraahdo political level heer siyaasadeed midna waxa la yiraahdo muxuu ahaa waa policing level heer booliiste marka af Soomaalihan si rafudeen ugu kala dhigi karaa waxa weeye political level waxaan yiraahnaa qofku hadduu dulmi tirsanayo oo dulmigiisa muxuu ahaa uu dulmi tirsanayo qofkaas ma oo marka dulmigiisa uu soo ka cabanayo oo cadhoodo qofka ma ahayn madax laga garaaco waxa weeye waa in muxuu ahaa dulmigiisa hab loo xal dulmigan uu tirsanayo hab loo xaliyo waa in la keeno absolutely si qofku hadduu dulmi sameeyo oo isagu dulmi wado waa in la helo hab lagu qabto isaga lagu joojiyo marka political level waxa way qofka dulmiga tirsanaya si loo raali gelin lahaa ama problemkiisa loo xalin lahaa taas waxa way political level absolutely so qofka markuu dulmi sameeyo in la joojiyo waxa way police level marka soo qofka dulmi wado xumaan wado in la joojiyo qofka dadka laga qabto waxa way police level marka police waxa way muxuu ahaa in xaliyaha waa xaliyaha police waa qaybta dambe kan dulmiga wada si loo joojin lahaa وقيحد أنا ما هو ما philosophical ما social ما كل ما هم ولا هو social and political ويان وسياسة يو بولشويان بليسكي وقتها مركا وحوجا وكفر أحسن سيدا طابطي كل ده قيحد ولي مغل حسن قيحيو النصيب بينه مالت لنا داود ديال سومالي رئيس المركز ديوكتو شخص سوماليات بوليس كقرنا يكسو شقيبان الله فديو يعني waxyaalo badan noo fasiri doona halkan uga faa'iideysan doona ugu horeyntii barnaamijka marka ka waran marka siyaabaha kala duwan booliiska uu shaqeeyay howlgalka booliiska iyo maxaa keenay baahida booliis in loo baahday muxuu ahaa in horta wadankan aan joogno kale hadii example ahaan kale isticmaalo booliiska habka uu shaqeeyo waxa la yiraahdaa muxuu ahaa waa policing by consensus muxuu ahaa mujtamaca ayaa waxay sameysteen waxay isku raacsan yihiin oo ay dambi u arkaan marka mujtamaca ayaa waxa weeye marka hore waxa nidaam isku raacay hab loo wada fakaraa waxyaabaha qaarkood in loo arko inuu dambi yahay marka booliisku waxyaabaha la isku raacay in loo arko inuu dambi yahay ayaa waxa weeye booliisku wax loogu talagalay inuu waxa joojiyo oo ka hortago marka booliisku wadankan oo kale habka uu shaqeeyo waxa weeye booliisku power buu isticmaalaa markuu ومحوها وشقينايو باورka waxa siiya baarlamanka siiya marka baarlamanku waxa way baawar booliska siinaya مثلا tusaale ahaan kale simple example kale qofkii baabuur hadeen la soo qabto
ama qofkii qof muxuu ahaa dhacay in la soo qabto باوركن بوليسku iskama laha باوركن waxa siiyay muxuu ahaa baarlamaanka waa qodob sharciyeysan waa qodobada sharciyeysan kamid oo baarlamaanka uu soo saaray marka boolisku waxay ku shaqeeyaan dhamaantood waxa weeye nidaam baarlamaan oo waxa weeye muxuu ahaa in law ay wataan marka xitaa booliska imka ingiriiska kale marka joogto haduu nin booliis uu ku qabto oo muxuu ahaa uu ku yiraahdo muxuu ahaa in uu ku joojiyo ama waxa weeye su'aal ku weydiiyo ama waxa weeye uu kugu hadido ku xidhayo marka waxaad oranaysaa muxuu ahaa under which powerkeed ugu xidhaysa awoodeed ugu xidhaysa marka waa inuu kuu sheego sharciga uu isticmaalayo oo kugu xidhayo qofku iskama ka qaban karo kuma oran karo waxa weeye aan ku joojinaya aan ku baaraya aan ku joojinaya waxa weeye waa lagu xidhaya waa inaad weydiiso awoodeed ugu xidhaysa illa xoolo ma qof iska xidha ma marka waxa weeye muxuu ahaa booliska markay guryaha baarayaan aydan mandaad warqa letter mandaad waxa weeye waa inuu warrant wataa guriga iskama soo gali karo waa inuu warrant maxkamad ka soo qaato maxkamadu ogolaato inuu guriga soo galo booliska hadduu guriga baarayo marka muxuu ahaa booliisku habka uu shaqeeyo wadankan waxa weeye waa police by consensus waxa weeye booliiska oo waxa weeye muxuu ahaa waa wax la isku raacsan yahay ku shaqeynaya wax la isku raacsan yahay u shaqeynaya marka booliisku ma aha inuu dadka qaarkood waxa weeye uu cid kale dadka qaarkood qaarna uu heliyo qaarna aan u helin booliisku ma aha muhiimadiisu in dadka dawladda ama dadka powerka haysta inuu ilaaliyo booliisku waxa weeye imka matalan wadamadan ka nimi ama wadamada waxa weeye muxuu ahaa inagu inadriska naqaano booliiska waxa loo isticmaalaa muxuu ahaa dadka awoodda leh ayaa waxa u isticmaalaan tool dadka madax lagaga jabiyo se booliisku waxa weeye muxuu ahaa generally waxa weeye waxa la yiraahdo muxuu ahaa af ingiriisi aan nahay apolitical waxa weeye political waxba kama soo galaan booliisku waxa weeye politicalka iyo siyaasadda banaanka yahay booliiska shaqadiisu waxa weeye in waxa weeye muxuu ahaa ammaanka dadka iyo dadka waxa weeye muxuu ahaa nabadgelyadooda inuu badbaadiyo inuu sugo waa sharciga iyo nabadgelyada inuu ilaaliyo marka waxa weeye qof kasta oo marka muxuu ahaa in sharciga jabiya ama qaanuun ka hor yimaada meesha doonta ah booliisku soo qabanay waxa weeye muxuu ahaa wadankan example badan oo saasoo kale aan haynaa oo waxa weeye rag saraakiil sare oo wadanka waxa weeye muxuu ahaa in muxuu ahaa xitaa wasiir ka ahaan jiray waxa weeye waxyaabo dambiye roo xitaa aan saa u sii weynaa markay galaan lagu soo qabtay مثلا محوها مستهين وين قرأنا وسيركي محوها إن ترانسبورت ليبرال ديمقراطية هو محكمة بلوغ تشيل بلوغلي مهم كل واحد هذون قاعد يقول سبيد كاميرا بودافي حاسكيسي وحبا حاسكيسي أبصر بوليس وساق قبني شرعي قف ولا شرعي كوين مرقف الشرعي كوين مركا وحوي مثلا عقليات إنه قدما استعمال له كدوي بوليسكو وحوي وانستيوشن وحوي محل وانستيوشن أنا وحوي بوليتيكال كسوق جلين سياسة شقة كلها يجوا حوي هوشود ضدك مجتمع أمان كوده ينبت قريضه أي كتلني habka uga talinayana waxa weeye wax la isku raacsan yahay ama wax mujtamaca iyo dawladdu isku waafaqeen illa ilaaliyo ayuunba ilaalinaya waana qodobayna ku socdaan oo qoran waana qodobo ku socda oo yani iska soco ma aha marka booliisku hadduu waxa weeye muxuu ahaa wax kasta uu sameynayo power buu isticmaalaya waxa weeye muxuu ahaa hadda ingiriiska oo kale booliisku hadduu qof soo qabto oo ku xidhayo waxa weeye kelmadda ugu horeysa ku odhanaya waxa weeye waxaan kugu soo qabtay arintaas waxaan kugu xidhayaa ama kugu haystaa sharcigaas waa lagu akhrinaya adoo hortaagan ku akhriyay marka avocado kan solicitor doono hadhow marka loo xidho hadii avocado iyo solicitor iyo maxkasa tagayso wixii booliisku yidhi baad avocado u sheegaysa marka avocatuhu muxuu ahaa sharciga lagu isticmaalay in si sax lagu isticmaalay inaan si qalad lagu isticmaalay intaas uu avocado eegay marka waxa weeye muxuu ahaa maba jirtaba waxa weeye meel wax isdhaafayaan askarigana nacab iyo booliiskana nacab gurigii uu soo galay waa qabtay waa joojiyay qabiil buu ku sameeyay midabkayga madow iyo waxyaabaha ma jiraan muxuu ahaa in horta qofka booliiska ninka booliiska waxa weeye qof bini aadan oo shicib caadi ah waana arrin kale hadda muxuu ahaa rabeen caday booliiska wadankan wuxuu boliis yahay oo kaliya markuu uniformka xidhan yahay dharka markuu sito markuu uniformka xidhan yahay oo boliis waxa weeye warrant uu ku tuso markaas uu boliis yahay haddii aanu uniform xidhnayn warrantkiisuna uu qarsan yahay waxa weeye sida adigoo kale maash ay waxa weeye muxuu civilian caadi u yahay waad iska celinaysa caadi iska celinaysa waad tas ersar weeye marka muxuu ahaa in booliiska
ama ninka booliiska waxa weeye muxuu ahaa waa civilian caadi horta originally noloshiisa shakhsiyadiisa caadiga waxa qof civilian weeye qofka civilianka waxa weeye muxuu sida dad kale bini aadanka ayuu qalad u sameeyaa hadduu qalad kugu sameeyo nin policeman waxa weeye waa sababta sharciga meesha u jooga waa markaa weeye marka inaad sharciga u dacwato weeye imkan oo kale hadda booliiska muxuu ahaa marka qaarkood waxa looga cawdaa in muxuu ahaa ay qalad sameeyaan qalad ay sameeyaan waxa kamid ah muxuu ahaa marka qaarkood in dambi dhacay ayaan si fiican u baaray ama nin booliis caajisa weeye ama waxa weeye nin booliis oo waxa weeye muxuu ahaa in muxuu ahaa kulli wuxuun baa keenay inuu waxaan si fiican u baaro laakiin ujeedada kama leh laga yaaba oo toos ah inuu ujeedada ka leeyahay waa suuriga oo isaga shakhsiyan waxaan taabtaan se waxa weeye markaa de waxa weeye sharciga booliiska markaa ku dacwayso weeye absolutely muxuu ahaa ninka booliiska mesela hadduu hab qalada muxuu ahaa oo kale tusaale ahaan oo kale waxyaabaha aada looga cawdo kale hadda wax kamid ah booliisku waxay isticmaalaan sharci waxa la yidhahdo muxuu ahaa in stop and search stop and search waxa weeye muxuu ahaa in adoo wadada iska maraya ayuu waxa weeye muxuu ahaa in ayuu ku joojinaya ku baadhaya in matalan tusaale ahaan oo kale waana meel mujtamaca soomaalida waliba aada dhibaato ugala kulmaan dadka khaas ahaan dadka dhalinyarada iyo Jamaica wadankan de waxa weeye wadan horumarsan oo waxa weeye ilaahay inaga ina keenay waxa weeye waxa jira waxyaabo muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa sharciyo aan qornayn baa jiro dadku dhaqma haddii qofku aad si qurux badan u labisan tahay si qurux badan nadiif u eg tahay inta badan waxa weeye muxuu ahaa dadku xumaan kagama shakiyaan qofka dharkii bay fiirinaysaa si fiican baad u labsan si qurux badan stylekaada leeyahay si nadiif aad u eg tahay waxa weeye dadku xumaan dadka ugama shakiyaan laakiin ka juwal tahay si haddii waxa weeye nin muxuu ahaa dhar jeeda baalkii muxuu ahaa hood madaxa ku soo xidhay si yar qaab danas ka xidho adaa waxa weeye mushkiladu u yeeranaya dadku waxa ka shakeeya booliiskuna dadku ka mid yahay marka waxa markuu nidaam noocaas ku arko police waxa uu ku joojinay laakiin badana dadkan asalkooda madowga oo halkan dalkan u dhashay oo madow oo Brixton aad deganta xaafadaha dhan ay u badan yihiin oo ka arinta ka tabanayo meel walba kaga dacwoodo la stage stop and search jooji bar kaliya waxa la baaraa dadka madow arinta ka war muxuu horta wixii laba qodob ba meesha ku jira nin cad lama baaraa horta waxa jira in waana arin yar hadda imka police care baxsanan muxuu ahaa in barian mental health la shaqeyn jiraan aan xooga ka bartay waxa jira system wadankan muxuu ahaa dadku si u fakaraan waxa weeye nin madow oo dhalinyaro ah hadii waxa weeye la arko waxa weeye automatically waliba khaas ahaan ninka weeye haduu dhalinyaro yahay waliba nin madow yahay automatically dadka maskaxdooda waxa ku soo dhaca inuu qofkani qof xumaan wadaa uu yahay oo diblowa haddii marka adoo dhar qaab daran oo si foolxun dhaqmayo si u kala jeejeeda lagu arkan waxa weeye tiiba caqliyadiiba sii kordhinaysa marka waxa weeye booliiskuna waxa weeye shakiga noocaas ma ku shaqeeyaan haddii waxa weeye muxuu ahaay laakiin maxaa laga baarayaa oo dadkan loo keenay bahashii la cabay la dhuuqayo maxaa la yiraahdaa najista ma la yiraahdaa bahashii la dhuuqayo ganacsigeeda iyo doctor hadda waxaas baa booliis ahaan jiray marka muxuu ahaay sababaha loo baarayo sababaha waxba laga shakanayaa booliisku stop and search waxay isticmaalaan haddii areada waxa weeye muxuu ahaa aad marayso ama ay markaa kaaga soo baxaan areada ay mushkilad ka dhacdo haddii areada ay mushkilad ka dhacdo waxa weeye ka bacdi marka cid kastoo areada joogta ama wadada maraysa booliisku xaq bay u leeyihiin qofka joojiyaan oo qofka waxa weeye muxuu ahaa ay baaraan daraaga ka waran adiga askariyaad ahaan jirto waad ka leexleexanaysaa laakiin annaga waxaan ognahay badooga sababta loo baaro wax kale maahan daraag baa saacadaha dambe marka la joojinayo daraag baa looga shakiyaa inay habeenkii meelaha la wareegaan maalintii dhan ay jiifaan arrintaa ka waran muxuu ahaa horta in markay runta isu sheegno waxa weeye dee marka qaarkood waxa weeye muxuu ahaa hadalka laga wareega marka qaarkood waxa weeye muxuu ahaa dhab baa loo taabta waxa weeye mujtamacyada wadankan la degan khaas ahaan dadka muxuu ahaa in waxa weeye khaas ahaan colorkan madowga maaha marka waxa weeye muxuu ahaa noocul ma Soomaalidu xitaa dhalinyaradu hadda way soo galaan waxa weeye mushkilo waxa jirta muxuu ahaa xagga drugska marka mujtamac oo dhan maaha se waxa ku dhex jira niman gaangisa ku dhex jira waxa weeye drugskan iyo waxan muxuu ahaa ka dhex shaqeeya marka waxa weeye dadkan hadda muxuu ahaa in suuqa badankiisa waxaan ku iibiya dadka wax isticmaala dadka waxa weeye shidada iyo dagaalkan iyo dhibta uu drugskan wato ku dhex jira badankoodu
ee muuqda waliba dadka qaarkood waxa weeye ku dhex jiro aan muuqan baa jira ee muuqda waxa weeye waa ninkan dhalinyarada madow waa tahay barnaamijka qaybta waa aad waxyaalo badan baa na sugaya waynu fahmnay ka waran marka booliiska iyo ka hortagga dambiyada muxuu ahaayne horta waxa weeye dambiyada waxa weeye muxuu ahaayne booliisku laba siyaabood waxa weeye u approach karaya sax waana waxa weeye muxuu ahaayne waana wadanka noloshiis waxay ku base garaysan tahay marka horeyse waxa weeye muxuu ahaa waxaan la dhahaa moral education qofkii dhalinyarada ahaa markuu iskuulka tago ama waxa weeye noloshiisa caadiga qofkii in laga dhaadhiciyo in waxyaabaha qaarkood ay dambi yihiin waanu qofku waxaan aaminsan yahay waxa weeye marka waxa weeye waa moral education waxa weeye muxuu ahaa qofkii lagu tababarayo qofkii horta marka hore waanu basic lay waanu qofku inaan xawiyaan ahayn lagu barbaariyaa marka hore waanu marka waxyaabaha qaarkood waanu qofku shakhsiyadiisu ay siiso inuu waxaan dambi yahay absolutely marka booliiskuna waxay ka mid yihiin waa waxa weeye waa educational systemkaas ay ka mid yihiin dadka baraya waxyaabaha qaarkood inay dambiyihiin absolutely marka muxuu ahaayne mujtamacyada ama waxa weeye dadka waxa weeye dambigu ku bato inta badan waxaa qayb weyn ka noqota waxaa la idhaha muxuu ahaa in corruption soo gala moralkooda oo qofkii wixii dambiga ahaa aanu dambiba u arkayn oo caadi u arkayo imka matalan oo kale imka xitaa example yar waxaa imka inaga wadankeena oo kale waxa weeye muxuu ahaa ninkan muxuu ahaa dadka dhacaya ama dadka masaakiinta dambi bam ku dhex qarxinaya waxa weeye muxuu ahaa morally habkii uu saxay u fakaraya qofkan wax ka khaldameen wakaas kabacdi marka taasuu ku banaystay dadkan in waxa bamba lagu qarxin karo absolutely waa uu qaybta noo soo socotaa waad mahadsan tahay daawad waxaan u malaynayaa aad baan uga faa'iideysan doonaa Saciid Ismaaciil baliiska iyo ka waran marka waa aragnay dambiyada waa aragnay crime prevention waxa la yiraahdo aqoontii wali anaga hadda maanta taaban marka waxaan aqoon bay ku dhasiin baliiska aqoon badan baa la siiyaa waan doonayna kaaga faa'iideysano baliiska Soomaaliya waxba noo soo socda hata baliis waa gali doona waxa la yiraahdaa ka hortagga dambiyada haday dambiyada aragna qaabkay ugu hortagaa siyaabo kala duwan bay ugu hortagaa adaa garanayo ka warranta horta baliisku waxa weeye muxuu ahaayeen wax la yiraahdo waxay leeyihiin wax la yiraahdo muxuu ahaa taking initiative to fight crime marka micnaheedu waxa weeye baliisku steps bay qaataan laga wada fakaro laga wada fadhiisto ah sidii crime-ka muxuu ahaa looga hortagi dambiyada sida looga hortagi marka muxuu ahaa crime-ka intaanad ka hortagin horta marka hore you have to understand marka waxa weeye marka su'aasha marka hore ay isweydiiyaan waxa weeye dambigan maxaa keenay imika tusaale ahaan oo kale in bariyo dhaweyd magaalada London waxa mushkilad badan ka socotay dhalinyaro midiya wata waxa weeye oo muxuu ahaa dagaal meedhan waxa weeye meel kasta dadkii midi ku dhufanay marka waxa weeye su'aashaas kale cause-ka maxaa dilkan maxaa keenay ama maxaa la isu dilay marka waxa taasi waxa weeye waa cause of muxuu ahaa dambiga wixii keena waxay baarayaan background-ka marka helayaan marka wixii background-ka wad helaysa waxa dambigi marka hore crime-ka isku dayaysa inaad fahanto ka bacdina maxaa keena sababaha la baaraya ka bacdi marka taa hesho ka bacdi marka waxaad weydiinaysaa muxuu ahaa dambiyadani sayba mujtamaca u afkarayaan sayba dadka u xabanayaan waxyaalada ay ku yeelan karaan dadka wax u yeelayaan absolutely ka bacdi marka muxuu ahaa labada ay sameeyeen ka bacdi marka stepta dambe ee booliisku sameeyaan waxa la yiraahdo information gathering macluumaad ururinaya macluumaad bay marka ururiyaan absolutely waxan yaa sameeynaya dambigan yaa sameeynaya dadkeebay ku sameeynayaan muxuu ahaa halka eerideeba lagu sameeynaya muxuu ahaa in waxan cid kale ka dambayso oo dabada ka wadamiya jira ka bacdi marka wixii analysis lagu sameeyay ka bacdi marka wixii la fahmo ka bacdi markaas waxa la yiraahdaa muxuu ahaa booliisku waxay sameeyaan resource allocation marka resource waa loo diyaarinaya meelihii laga soo helay iyo resource allocation waxa weeye waxa loo diyaarinaya groupkii booliiska waxaan la dagaalami lahaa sidii waxaan loola dagaalami lahaa because wixii oo dhan waaba la analyze karay waa la fahmay dadka waxaan cidda sameynaysa sababta u sameynayaan dadka ku sameynayaan meesha ku sameynayaan dhalinyarada kale hadda shaqo la'aantii entertainment-iga la sii jiray centeradii wax ku sameey jireen waa meelaha isku ma wali baa laga xiray xisbiga loo dhalinyarada waxa uu keenay isdilaan waxa ku wacan yani noloshooda baa ciriiri gashay wax ay sameeyaan garan maayaan
doodaha noocaas oo kala dhashay waad la socotaa ka bax aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa arrin ka hortagga iyo baliiska iyo waxaan doonayna laakiin inaan ka faa'iidaysano waxaan isbarbardhig baan samayn doonaa waxaa inta aan gelin ka hor qaybta dambe oo Soomaaliya boliiska dalkan nabad sugidda ka war nabad sugidda iyo boliiska farqi baa u dhaxeeya muxuu haayna horta waxa weeye in wadankan amnigiisa waxa weeye waa wadan weyn weeye marka waxa weeye muxuu ahaa waxa la yiraahdo boliiska ama waxa weeye muxuu ahaa in muxuu ahaa social order ka waxa la yiraahdo mujtamaca iyo nabadgelyadiisa bulshadiisa waxa weeye muxuu ahaa qaybo kala duwan ayaa loo kala jabiyaa marka example oo kale waxa jira muxuu ahaa in boliiska ka shaqeeya muxuu ahaa border police boliiska waxa weeye ammaanka muxuu ahaa socdaalka iyo ammaanka xuduudaha boliis kale waxaa jira muxuu ahaa crime bahalkii muxuu ahaa drug prevention oo drugs ku kale iyagu ku wajahan maasha in muxuu ahaa phenomenon hadda arrin cusub hadda baryihii dambeysay soo baxdo kale muxuu ahaa in anti terrorist police taran waxyaabahan terrorismka argagixisada waxa weeye muxuu ahaa inaga waxa weeye muxuu ahaa qayb sibay inoo si weyn bay waxa weeye khaas ahaan ka mujtamacahan oo kale inoo saameysay maadaama waxa weeye waxa wadamadeena ka dhacaya waxa weeye lagu xidhiidhiyo inagu waxa weeye hadda seen halkan joogno marka qaybo kale haddana waxa kamid ah muxuu ahaa waxa la yiraahdo espionage muxuu ahaa prevention ama waxa weeye dabagalka la yiraahdo espionage dabagalka waxa weeye taas waxa ku saabsan tahay in wadanka laga difaaco dawlado waaweyn oo doonaya waxa weeye مثلا سرت ودنكو leeyahay inay xadaan marka sirtu ma aha oo kaliyoon hadalku kali yiri ama labada qof ee hadalka isdaafsadeen sirtu waxa weeye مثلا su'aalahan oo kale kambaniyada waxa weeye bangiyada soo shaqeeyaan ganacsiga waa warshaduhu soo shaqeeyaan nuclear-ka muxuu ahaa military hardware kooda kale muxuu ahaa waxyaabahan in meelahan politician ku shiraan oo kale waxyaabahaas oo kale waxa weeye in laga ilaaliyo inaan cid aan waxba aanay ka khusaynin aanay soo faragelin waa tahay aad iyo aad baad u jeclaysa barnaamijkan inkastoo weliga askari aan noqon laakiin waxaa galeynaa qaybtii labaad intaan golan waa soo koobayna marka hadda waxaan doonaynaa ku weydiiyo maaragtay ka waran meeshaan dhalinyarada crime recruitmentiga iyo waxaan ogahay dee waa jiraan calaa kulli xaal waxba idinka dambeeya gadayna hataa askar noqda annaga kama warqabnaa malaynaya waa insha allah laakiin waa iska okay inta ugu muhiimsan waa qaadanay wada shaqaynta boliiska iyo Soomaalida waa maaragtay loo baahan yahay qudhooda waxbay ka fahamsiino hadda duruus badan baa laga baxshay qaybta labaad ee Soomaaliyan galayna boliiska iyo amniga Soomaaliyan galayna ma horta inta taad galeen hal mid ka artaabto muxuu ahaa in boliiska iyo waxa weeye iyo waxa weeye mujtamaca Soomaalida iyo waxa weeye muxuu ahaa iyo qayb muxuu ahaa kaalinta shaqo kaalinta shaqo aadaan ku fahmay muxuu ahaa in horta waxa weeye boliisku wuxuu ka mid yahay organizationada ugu waaweyn ee wadankan dadka shaqaalaysiiya waa ururada ugu waaweyn imka London oo kaliya waxa weeye boliisku qiyaastii 50,000 oo waxa weeye qof bay shaqaalaysiiyaan waa huge number waa number weyn weeyaan waa number aad weyn muxuu ahaa boliiskuna wuxuu ka mid yahay hay'adaha wadankan waxa weeye muxuu ahaa qofku xitaa inuu degree ka soo baxdo jaamacad ka soo baxdo uma baahnid waruna waana waxa weeye hay'adaha muxuu ahaa ay ugu sahlan tahay qofku inuu u shaqeeyo ma sha Allah muxuu ahaa in ka Soomaalihan dadka Soomaalida waxa weeye muxuu ahaa shaki weyn iyo dhibaato ka qabaan waxa weeye muxuu ahaa in shakigaaga dhibaatada iska hayso se waxa weeye hadda shaqo doonayso waxa weeye meel laga shaqeeyo way waxaanay ka mid tahay in haddaad مثلا tusaalahaan oo kale airport ka shaqeynaysa dad boliis shaqeynaysa wax farqi weyn ma dhaxay dalkaad u shaqeysaa wali waxa weeye waana shaqooyinka sida fudud waxa weeye muxuu ahaa lagu helo adiga qofka ka shakhsiyan waxa weeye muxuu ahaa hadda processka loo soo maraa waxa weeye boliisku recruitment code waxa weeye waa non stop ma kala joogsado qoritaanka shaqaaleynta iyo ururinta ma kala joogsado waxa weeye website kooda tagaysa waxa weeye haddaad doonayso inaad waxa weeye boliis aad noqoto muxuu ahaa qaybta recruitment ka tag waxa weeye apply garee
xitaa haddaana doonin police rasmi noqoto waxaad noqon kartaa waxa la muxuu ahaa in special constable marka voluntary ahaan baad ugu shaqeynaysaa police power baad leedahay adiga shakhsiyan xitaa waxa weeye reerkaaga adiga ku badbaadinaysa waa tahay waryaa noogu dara saacad kale yuusuf iyo farsamada bal waxaynu doonaynaa xagga Soomaaliya inaan u jalaacno markan aan isla eegno waxaan u faa'iideyn karno baliiska waxaad u faa'iideyn karta iyo amniga Soomaaliya muuqaal ku saabsan tababar la siinayo ciidan Soomaaliyeed يا الله لهان جري الله لما تبي استقال اسمر runtii sidaad arkaysaan ciidankan waa ciidankii qaranka Soomaaliyeed uu u talagalay in ay wax ka qayb qaataan howlaha nabadgelyada ee caasimadda muddo ayay ku jireen haddana waxaad waa boorsamintidii ugu horreysay ama baraatigada ugu horreysay oo ay sameeyaan The important thing is not the training for the Somali police. The important thing is equipment. We have over 1,000 people here, and I can tell you they are ready to go out and keep order in Mogadishu and other places. But they don't have the basic equipment, the rifles are not there, and other equipment for public order. They don't even have a single shield. Batons and other things are not there. And so maybe this is the right time for the international community to come to their aid, providing them with the basic equipment to be able to move out, because their continuous stay here doesn't help. waad maqlaysay Saciid Soomaaliya ma hadda galnay UK waa ka tagnay way arag baa tahay baliiska soo shaqeysay kastii yareeda ugu dambeysay ninka Amazon inuu ka socdaan u malaynaya sargaalkii haddana waa maqlaysay yani waxaanu tababarno ku leeyahay kuma turjumay Ingiriiska laakiin SNTV aan fadhiyaan waa inaan sheegaa inta kun qof baanu tababarno baliisa laakiin qalabkii baa naga maqan buu leeyahay technology farsamadii baa naga maqan aqoontii baa naga maqan waxaan ka codsanaynaa international community ga beesha caalamiga ah inay na soo gaaraan ay dadkan wax u qabtaan aqoon iyo qalab iyo wax walba ay siiyaan si ay u soo baxaan ay bulshadu u dhaxgalaan ay wax uga qabtaan arrinta bal horta ka waran intaan xagga farsamada iyo bariiska iyo Soomaaliya intaan galin ka hor muxuu horta in ninka booliiska ahi wuxuu dad kale ka duwan yahay waxa weeye muxuu ahaa in trainingkiisa iyo qalabku haysto oo waxa weeye shaqada ku qaban karo haddii waxa weeye muxuu ahaa aanu qalabkii ku shaqeynay aanu haysanin kale ninkii waxa weeye muxuu ahaa nin gacmaha ka xidhan ka dhigay muxuu ahaa horta aqliyadan anu shakhsiyan muxuu ahaa ka mujtamac Soomaalihan iyo waxa weeye ka society ahaan dib u eegna way lafteena waxa weeye wax kasto aan sameynayno aan cid kale ka baryayno waxa weeye booliiska in waxyaaban basic toolka loo iibiyo lacag badan ma koos karayso مثلا إن وحوي بوليس قياستي لبكون وبوليس إن وحوي ويبسو إن محوها إن قرية هنا قاعدانيان يوحوي محوها إن الشيل كان يسكت دفاعيا كتاني دي وحن إن وحن ويبسو لما أنت وحلا جايبنا الله بقوله كنا باون أنا كبرنان
waxa weeye muxuu ahaay xitaa waxa weeye mujtamaca Soomaalida waxa weeye dad waxa businessman ay leeyihiin dad waxa weeye muxuu ahaa magaalooyinka degan oo waxa weeye ka faa'iideysan kara muxuu ahaa nabadgelyo ay leeyihiin waxa weeye aqliyadu aan waxa mujtamaca Soomaalida aan aaminsan inay wanaagsan tahay aqliyada in laga wareego in cid kale un wadankaaga ay waxa weeye wax ku qabato inta wax ku taageerto waxa adigu businessman hadaa tahay muxuu ahaa lacag iska ururiyo booliiska u soo iibi waxa weeye muxuu ahaa wuxuu u baahan yahay perfect adiga waxa weeye ka bacdi marka booliiska xitaa wuxuu aaminsan yahay marka uu ku arkaya inaad waxa weeye muxuu ahaa aad dhismiyo ka qayb qaadatay hadhow si fiican kula shaqeynay oo dalkaada waxaad u qabanaysaa waxa weeye aqliyadan horta muxuu ahaa ka Soomaali ahaan ee inagu xidhantoona in waxa weeye adduunyada waxana siiso kan waxana siiyo waxa weeye waxa ku fiican marka hore qofku waxa weeye muxuu ahaa bal adigu gurigaaga waxaad u qaban karto u qabo booliiskan hadda waxa weeye muxuu ahaa xitaa police station ku hareeraysan waxa weeye tabarucaad imka Ingiriis oo kale muxuu ahaa in companiyadan waaweyn ee gawaadhida waxa weeye wadanka keena waxa weeye gawaadhida badankooda waxa weeye muxuu ahaa booliisku ay leeyihiin qayb badan oo kamid tabarucaad booliisku siiyaan gawaadhidan hadda badanku ay booliisku wataan Foxholka waa shirkad waxa weeye company halkan ku yaala waxa weeye muxuu ahaa booliiska gawaadhida waxay ku siiyaan discount aad u badan qiimo aad u jaban baa booliiska lagu siiyaa marka waxa weeye ka mujtamac ahaan bal su'aalan isweydiino war wadanka inaga iska leh maalin iyo habeen waliga nin kale ma bari kartid ma oran kartid waniyo waxaan u baahanay adigu wadankaaga maxaad u qabat su'aasha isweydii hadda waliba hadda business man tahay meesha degan tahay waxa weeye muxuu waajib baa ku saaran waa tusaale waxa weeyaan aad iyo aad u qoto dheer runtii aad u ballaaran runtii waana loo baahan yahay sababta waxa weeyaan booliiska anaga iska leh booliiska shacabka hadda doonaysa inuu yani waxa loo baahan laakiin in la isbaraa waxaas moral hadda waxaad ku tilmaamaysaa moral policing moral education yani bal horta in waxaan dadka WhatsApp ka waran marka waxbarashada booliiska muxuu ahaa horta Soomaaliyeed maxaan bari karnaa oo yani ilaan toolkii waynu garanno qalabkii waynu garanno maxaa loo dhigi karaa isleedahay halkan uga sheegaysa maxaynu bari karnaa horta dambiya xaq prevention horta dambiyada nooca ay yihiin qalabkii CCTV-yadii iyo wixii dhan maxaad isleedahay kulli horta muxuu ahaa booliiska ama waxaan la yiraahdo muxuu ahaa emergency serviceska wadanka markaan joogno saddex waxyaalood baa ugu muhiimsan ay sameeyaan to koobaad waxa weeye waa serviceska qofka markay dhibaato dhacdo ama mushkilad dhacdo in waxa weeye ninkii booliiska ahaa uu meeshan iman karo dhibtan wax ka qaban karo tusaale ahaan oo kale haddii muxuu ahaa dad islaayaan ama qof la dilo booliisku waa iman karo problemkan xallin karo gaarigiis wixiisa u wataa oo booliisku waxa weeye muxuu ahaa marka waa in service waa in booliisku ay jirto tusaale ahaan oo kale haddii gurigaaga oo kale intuu igu yimaado waa in booliiska u yeeri karo marka eeg waxa weeye waa serviceska waxa weeye waa emergency service waa in booliiskii iyo dadku ay wada xiriir wada yeelan karaan haddii matalan shida dhacdo waa inay jirto hab aan booliiska ugu yeedho aan ku yiraahdo muxuu ahaa in halkan dhib baa ka dhacday booliiskii ii kaala waa number lawaa inuu jiraa number lawaa marka waxa waa service waa in xiriir booliiska iyo dadku inuu jira waa in booliisku waxa weeye muxuu awood u leeyahay marka dadku u baahdaan inuu iman karo meeshii ay uga baahdeen marka that's number 1 waana waxa weeye waa serviceka ugu muhiimsan wadankan imika wadankan markaad magaalada dhex fadhiso police arki maysan gaarigiisu iska wata meelahaas maraya si haddii dhib dhacdo waad u yeedhaysa waxaad oranaysaa muxuu shida dhacday muxuu accident baa dhacay laba qof baa istilay qof baa la dhaawacay waxbaa laga xaday alaabta laga qaatay booliisku waxa weeye isagoo socdo ku imanaya ka bacdi marka dhibtii wuxuu bilaabaya inuu wax ka qabto marka waa number 1 waxa weeye waa in booliiska iyo dadku xidhiidh wada leeyihiin waa in booliiskana waxa weeye services hab loola xidhiidha waa inuu jiro oo waxa weeye booliiska lagu heli karo yaa ka shaqeynaya waxa marka waxa weeye wax dhib wax weyn ma siya waxa weeye waxan waa basic communication system oo la dhiso yaa laga doonayaa ma wasaaradda arrimaha gudaha ma generalka booliiska ma baarlamaanka ma prime ministerka yaad u sheegaysaa leedahay howlahaas basic booliiska idinka shaqadiina ay tahay muxuu ahaa xitaa baarlamaanka in muxuu ahaa in wasaaradda arrimaha dibadda xitaa arrimaha gudaha waxa weeye muxuu ahaa in waxa weeye qaybtan booliisku waxay soo galaan wasaaradda arrimaha dibadda se waxa weeye matalan habkan communication kan si loo dhisi lahaa ee booliiska loo soo gaari lahaa shirkad waxa weeye muxuu ahaa iska muxuu ahaa private samayn karta oo waxa weeye marka telefoonka qabato kula xidhiidhanaysa booliiska xataa haddii la waayo xitaa haddii la waayo se waxa weeye muxuu ahaa booliisku waxa weeye ka mujtamac ahaan
waxa weeye waa ammaankii magaalada kala shaqeynay waxa weeye qofkan in booliiska in loo in muxuu la siiyo toolskii ama qalabkii uu isticmaalay suu nabadgelyo ku ilaaliyo marka taas number 1 waxa weeye waa qaybta waxa weeye booliisku shaqada ugu muhiimsan qabto ama waxyaaban emergency-ga sida waxa weeye hay'adahan waxyaabaha muxuu ahaa dhibaatada ka soo qaybta labaad waxa weeye muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa waa prevention ama waxa weeye risk waxa weeye disaster prevention tusaale ahaan oo kale markaad magaalo weyn aad degan tahay dhibaatooyin badan baa dhaca marka qaarkood roobab badan baa dii kara area dhan wadooyinka dhan dadku goyn kara waxa weeye biyo badan ku soo furi kara dab badan baa dhici kara waa in waxa weeye police waa waxa waan jiro police iman kara oo waxaan wax ka qaban kara tusaale ahaan oo kale imka wadada hadda marayso oo hadda wadadan weyn hadda marka ay agteena hadii qasabad weyn oo biyo ay ku soo qaraxdo booliiska imanaya traafigi ammaanka dadka soo ilaaliyo waxay labada dhinac wala kala joogsan marka waxa weeye waa inuu booliisku ka qayb qaadan karo ama awood u leeyahay inuu ka qayb qaato waxyaabaha muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa channel disasterka waxyaabahan dhacdooyinka qaraxa waa weyn ma dhacdooyinka waa weyn waxyaabaha qaraxa waa weyn burburka waa weyn burburka waa weyn oo marka waxa dadkii marka way ku arkayaan in wax qabanayso arkayaan marka waxa dadku aaminkoodii baa soo kordhay absolutely marka qaybta kale waxa weeye muxuu ahaa waana booliisku qayb ka leeyihiin waxa weeye haddana muxuu ahaa in waana halkan la yiraahdo waxa weeye local authority hadda dawladahan hoose iyo booliisku hadda wadankan say wada shaqeeyaan oo kale waxyaabahan traffiga ama wadooyinka soo loo socdo waxa weeye waxay ka mid tahay nolosha waa qaybaha ugu muhiimsan si waxyaabo simple weeye saadana waxay ka mid tahay waxyaabaha nolosha ugu muhiimsan wadadan magaalada ku dhex taala waxa weeye muxuu ahaa waa in nidaam lagu kala maro oo lagu kala leexdo u jiro gaarigan wadada maraya waxa weeye nidaam waxa weeye lagu maamulo inuu leeyahay wadadan lafteeda nidaam lagu ilaaliyo lagu badbaadiyo lagu habeeyo inay leedahay askariga shuruuc uu raacayo inuu leeyahay askariga shuruuc ku shaqeynaya marka mishaar inuu leeyahay marka booliisku nidaamkiisu waxa weeye waa hab noocaas waxa weeye muxuu ahaa basiga nolosha ee hoose ayaa waxa weeye booliisku istaajiya absolutely waxaan u malaynayaa saacadii baa nagu dhacday waxaa ficnaan lahayd inay saddex kale noogu daraan gabagabadii waxaan ku siinayaa daqiiqad wixii aad kula talinayd amniga iyo booliiska sugidda sharciga iyo nabadda muxuu ahaa Soomaaliya gaar ahaan hal kelmad kaliya aan oran lahaa waxa weeye muxuu ahaa noloshu dhammaanteed kama soo hadho dadka iyo niyadooda waxa weeye qofka muslimka ah Soomaaliga waxa weeye dulmi dulmi cid ha ku samaynin cid dulmi muxuu ahaa qof kale ku samaynaysan ha ku taageerin muxuu ahaa adigu laftaaduna waxa weeye muxuu ahaa shakhsiyadaada wuxuu qabo oo adigu shakhsiyadaada sagaaji anu waxa weeye booliiskan iyo meelo waaweyn iyo waxyaabo waaba qofkii aan ka fikirin waxa weeye mujtamacu iyaga booliis su noqda marka waxa weeye nidaamka mujtamacada badankooda adduunyada ku fikranaysaa weeye dulmi qof kale oo walaalkaaya oo Soomaaliya ha u geysan adaaba booliis amarka hana aqbalin cid kale oo qof kale oo walaalkaaya oo muslim oo Soomaaliya dulmi u geysana ha ka qayb qaadan ha ku taageerin dulmigaas suu doonahaada ha ku taageerin haddaad joojin karaysana jooji muxuu ahaa ta kalena waxa weeye adigu shakhsiyadaada iyo waxa weeye muxuu ahaa horumarka naftaada iyo familigaagana ka fikir ma sha Allah jazakallahu khayran kaas wuxuu ahaa Saciid Ismaaciil maanta halkaan uga soo jeedinayay mataqaanaa booliiska guud ahaan dalkan UK sidoo uu shaqeeyo iyo gaar ahaan Soomaaliya wixii afkaartiisa ay la ahayd iyo sidoo uu arka qaabka loo horumarin karo halkaan maanta noo ka faa'iideeyay Saciid aad buu u mahadsan yahay farsamada waxa iskala Yuusuf Garabay tan intaan kulmi doono barnaamij kale oo kala oo adigana aan ku filayn inaad soo fiirsan doonto waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo waad mahadsantahay Saciid shaqo sugo mahadsan